بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد walaalyaal kusoo dhawaada barnaamijkii aan ugu talagalnay inaan isku xusuusino sidaan uga faa'iideysan lahayn bishan barakeysan ramadaan xalqadihii inoo horeeyey xalqadan ka horeeyey waxaan kaga soo hadalnay mufatiraat siyaam soomka waxyaabaha buriya oo 7 ah halkaas ayaad ka daawan kartaan qofkii ay maaragtay ay dhaaftay laakiin xalqadan waxaan yani kaga hadli doonaa waxyaabaha hadda aan soo sheegnay ee dadka afuriya marka ay afurinayaan shuruud bay leeyihiin shuruud ay leeyihiin yani qofkii 7daasi shay mid kamid ah ku dhaca soonkiisi waa jabay laakiin shuruud bay leeyihiin shuruudaas shardigaas hadii la waayo soonkii ma jabin ma garatay shardigaas hadii la waayo yani waxa weeyaan soonkii macnaha waa jiraa wey مثلا waxaa kamid shardiga koowaad an yakuna caaliman fain kana jaahilan lam yaftur qof baa مثلا hadda soo islaamay marka in uu yani cunto inuu biyo cabo مثلا oo kale in soonka ay ka jabinayso ma uunan ogeyn ama biyo cabay marka waa loo sheego waxaa la biyaha cabidooda ama cuntada cunideeda soonkaba iyaga wey waxa laga soomayo ma garatay ama istimna yani mani buu iska keenay isagoon jaahil ka ah markaasaa loo sheego waxaa la yidhi waxaad samaysay soonku waa ku jabaya markii sidaasi loogu sheego qofkaasi xukunka uu jaahil ka ahaa markaasi ka hor soonkiisa ma jabin maxaa yeele jaahil buu ka ahaa laakiin markaa uu ogaaday kadib haddii uu u noqdo soonkiisa waa jabaya wey marka waa inuu marka hore uu og yahay xukunka yani waxa isaga uu sameeyey inuu soonka burinayo maxaa yeele ilahi subxana wataala wuxuu yihi rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhtana ilaahay oo hanoo qabanin haddii aan gefno ama aan halmaano ma aragtay yani gefku jahli baa keena marka yani taasu waa mid ilahay wuxuu kaloo yihi walaysa calaykum junaaxun fima akhta'tum bihi ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما إلهي سبحانه وتعالى إذن قبن مايو وحي قف جهلي إذن كدعي لكن وحي أولكع إذن كو أكل إذن كيمد با إلهي سبحانه وتعالى إذن قبن ياوي تاسنا وأن حريص إلهي سبحانه وتعالى يعني حقي سكاعتي مرك الجهل لقاسي أما حكم كي حنقضو أما وقتي قب حنقضو مثلا واحد دعي كرت قف صومنا ayaa qoraxdii baa caad baa daboolay wuxuu u maleeyay marka qoraxdii inay dhacday markaasuu cunto cunay markii uu 5 daqiiqo joogayba qoraxdiiba soo baxday buu arkay weli waa aan dhicin qofkaasi soonkiisi waa sax maxaa yeelay yani wuxuu u qaatay oo jaahil ka noqday waqtigii oo uusan markaas hadoon saacad haysan waxaa laga yaabaa inuu qaatay waqtigii inuu yani dhamaaday oo qoraxdii yani dhacday ama waqtiga ha noqdo ama xukunka ha noqdo waxa uu jaahilka ka yahay tan labaad waxa weeye an yakuna dhaakiran waa inuu xasuusan yahay markuu cuntada cunayo ama cabayo ama galmada samaynayo waa inuu xasuusan yahay inuu sooman yahay laakiin haddii uu halmaan darteed uu yeelo qofkaasi soonkii kama jabin abu hurayra xadiis uu warinayo wuxuu leeyahay man nasiya wahuwa saa'imun faakala washariba falyutima sawmah fainama atcamahu allah wasaqah xadiiskaasina imaam bukhaari iyo muslim labaduba waa soo saareen qofkii cunto cuna ama caba isagoo sooman yani soonkiisa ha dhammaystiro ilaahay baa quudiyey soonkiisana waa u jiraa wey marka qofkaas isagana waa inuu dhaakir yahay oo uusan maasan naasi ahayn uusan yani hilmaansanayn tan saddexaad waxa weeye an yakuna mukhtaaran in uu isagu yahay qofka doortay oo yani ku talagalay ee uusan ahayn qof lagu khasbay laakiin qof awood loo sheegtay yani مثلا la yiri waa lagu dilaya haddii kale fur ama cab ama cun yani oo awoodaas yani loo sheegtay ee khasabka darteedii u furay kaasuna soonkii kama jabin wey أن يكون مختارا أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته محايا لي فإن كان مكرها فصيامه صحيح buu yiri sheekh maxamed saalim ibn Uthaymin wuxuu u daliishaday
آيدي أهيد من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قفك هذه كلمات قال كل واق ليرادو او كل واقو iyadoo markaa ama waa lagu dilayaa qalbigiisana uusan yani jirin gaalnimo qalbigana uu ka nacayo qofkaas ee ku gaaloobi maayo sidoo kale tii sidii ay la mid tahay maadaama yani la khasbay yani qofkaasi yani waxay noqonaysaa in uusan ma aragtay soonkiisa uu sax yahay waxaa la mid ah haddii ninkii ragga ah haweenaydiisii iyadoon ogolayn uu si xooga uu ma aragtay wax uga dhamaysto oo ku maquuniyo oo ku khasbo yani iyada soonkeedu waxba yani yeeli maayo laakiin isaga soonkiina ka jabay kafaarana laga rabaa way ma garatay yani soonkeediyada sax buu u yahay marka sheekh maxamed saalih ibn uthaymin uu saddexdaas sharti ayuu ka soo reebay yani qofkii laga helo inuu soonkiisa sax yahay waxaan niri saddexda awalan an yakuna caaliman inuu ogyahay xukunka shaygan ama waqtiga iyo wixii la mid ah inuu aqoon u leeyahay waxaan inuu yahay wixii soonka burinayay tan labaad inuusan halmaansanayn oo isagoo xasuusan uu sameeyo tan saddexaad in isaga ikhtiyaarkiisa oo aan lagu khasbin cidina aan maqooninin uu markaasi sidaasi uu yeelo marka saddexdaasi shardi haddii la helo qofka soonkiisii weli waa u jiraa hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh